qaybaha kala duwan ee warbaahinta ka howlgasha magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa tacsi u diray geeridii naxdinta lahayd ee ku timi marxuun Cabdiweli Faarax Jaambir oo hata fitrihii guud ee wargeyska Ogaal oo ka soo baxa magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wana kuwan iyo ko tacsidaasi diraya. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacaygu yahay Maxamed Ibrahim British kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. runtii waxaanu halkan maanta hadaan nahay guud ahaan bahda warbaahinta gobolka Togdheer aanu tacsi tirayeen looga diraynaa guud ahaan boqoyskii qaraabadii iyo guud ahaan bahda saxaafadda Soomaaliland ee uu ka baxay Allah ha u naxariistay gudoomiyihii wargeyska Ogaal Cabdiweli Faarax Jaambir. runtii waxaanu Ilaahay uga baraynaa inuu janno firdawso geeyo. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون. الله هؤلاء حريصته وحنا كن تعسو قدر يا عبدولي فارح جامبير وكجريودي عاصمة سوماليلاند هرقيسا. أنا وح عبد الستار عبد الله علي وحنا الله وقبر يا إن الله حريصته جنك ورابيو الذي يقربدي وكبح مرحوم كاسنا وسمري إيمان كسيو. مركله إن الله سمر كسيو. bulshada reer Soomaaliland marxuunkaasi oo kaalin mugyo miisaan leh ugu jiray gaar ahaan aad waxaan uga sii tacsiyadeynayaa dad aan u aqaanin ehlihiin oo saxaafadda Soomaaliland guud ahaanba meel kasta ay ka howlgalaan oo ka baxay marxuunkaasi. bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Cabdiweli waxa uu ahaa nin suxufiyiinta Soomaaliland ugu caansan buu ahaa. الله سمرية إيمان هكسي وان لي الله نهاون حريستو بهذا الصحافة دنا وان وقت عسيادين يا قيسكي قرابدي أهلكي وكجريودين وحن ليها إدعيس. بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو خالد أحمد محمد كان ميدا وربهين تقبل كتبلر وحنا لكن تعسي تيرانية لو قدر يا عبدولي فارح جامبير وها تفتريه جود ورجيسك وقال دمان الذي قيسكي قرابدي وكبحية دمان بقرن كسومالي لان يبهذا الصحافة الصومالي لان وحن ليها إلهي سمرية من هاي نقصي سجن جود. إنا لله وإنا إليه راجعون. وحنا هالكن تعسيق الدري يعني قم مجاعيجو يهاي محمد سعيد جحنوج أنت فتريه جود شبكة ورجيسك أوغال وحنا اللي هاي كل دت كنت هو السعونيان وأنا دمانيان وحنا تغييرن تعهيد معن تأخره وكنا سنايي وحنا اللي هاي دمان بعض الصحافة يا بلشدي وكبحي يا رارك وكبحي با إلى هاي سمرية من هكسية. waxaan halka ka tacsiideynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi saaxiibkii Cabdiweli Faarax Jaambir oo ahaa agaasimihii guud ee wargeyska Ogaal. waxaan leeyahay inna ilaahu wa inna ilaahu raaji'uun. waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. mid kale wuxuu ka mid ahaa Cabdiweli Faarax Jaambir ragga ugu waaweyn saxaafadda Soomaaliland. annagu waan isnaqaanay ninkan wuxuu ka soo shaqeeyay wuxuu ahaa aqoonyahana waxaanu ka soo shaqeeyay wadamada horumaray sida Nairobi iyo wadamada kale ku yaala galbeedka Afrika. lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. waxaan halkan uga dirayaa tacsi tiiraaye leh walaalkay Cabdiweli Faarax Jaambir oo magaalada Hargeysa ku geeriyooday oo ahaa runtii wariye tiir adag kaga jiray warbaahinta Soomaaliland walaalkay oo aan aad u jeclayn. waxaan tacsi tiiraaye u diraynaa anagoo bahda warbaahinta gobolka Togdheer oo aan uga tacsiyadeynayna ehelkii qaraabadii asxaabtii iyo dhammaan warbaahinta Soomaaliland oo ka geeriyooday ka baxay aanu leenahay Ilaahay ha u naxariisto qabriga ha waas. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. أنا عبدامين عبد الله محمد كان من bahda warbaahinta gobolka Togdheer waxaan tacsi tiiraaye loo dirayaa تفضله جود ورجيسك وقال عبدولي فارح جامبير الله يا رحمن الرحيم وحان لا هاي إلى هاي هون حريسته وحان كلام تعسيرين يا جودهان كي قرابدي يبهذا الصحافة الصومالي اللي أنا وكب حي الله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. قف كست الدنيا دم كر كذا صار جيري ودرنامين أنا بعض الصحافة قبل كتقدر مقعيقون ياهي محمد علي أحمد محمد كابه وحان هالكن تعسير ترايا لو قدر يا Cabdiweli Faarax Jaambir oo ahaa tifaatiraha guud ee wargeyska Ogaal oo maalintii daraad toona ahayd ku geeriyooday magaalada Hargeysa. waxaan leenahay Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo. maanta wuu dhintay aakhiraan jira. waxaan maanta u baahan yahay waa duco. magacaygu waa Dayib Cabdi Xirsi. waxaan halkan tacsi uga dirayaa tafafarihii guud ee wargeyska Ogaal Cabdiweli Faarax Jaambir oo weekend ku geeriyooday magaalada madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa. waxaanan tacsi uga dirayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan qaranka Soomaaliland
aan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. geesta kalena maamulka dowladda hoose ee degmada Burco maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada Burco ayaa tacsi u diray dhammaan beeladii qaraabadii qoyskii iyo dhammaan babahda warbaahinta Soomaaliland oo ka baxay marxuun Cabdiweli Faarax Jaambiir waxaana yiraahdeen raajicuun waxaan halkan uga diraynaa tacsi Cabdiweli Faarax Jaambiir oo ku geeriyooday 7 bisha magaalada Hargeysa. ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa ilaahay godkii u nuuro nin weyn buu ahaa oo reer Soomaaliland runtii ku weyn gaar ahaan saxaafadda reer Soomaaliland Cabdiweli runtii door weyn buu ka qaatay habsami socodkii runtii saxaafadda Soomaaliland xilligii ay kobaca ku jirtay waa raggii taariikhda maanta ay Soomaaliland saxaafadeedu marayso qaybta weyn ka qaatay waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay inaga siiyo dhammaan. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaan tacsi ballaaran halkan ugu diraynaa marxuum Cabdiweli Faarax Jaambiir oo ahaa tafatirihii guud ee wargeyska Ogaal. marxuumka waxaan samir iyo iimaan leenahay eheladiisii qaraabadiisii iyo cid kastoo reer Soomaaliland maadaama uu ahaa saxafi weyn oo reer Soomaaliland oo bahda saxaafadda ka baxay. marxuun Cabdiweli Faarax Jaambiir oo tafatirihii guud ee wargeyska madaxa bannaan Ogaal ee ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa ku geeriyooday maalmihii la soo dhaafay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Waa Khalid Bakeele, shabakadda caalamiga ee Ictiraaf News, Burco.